Education Platform. soo noqonay Abubakar Said Umar maadada taariikh fasalka 3 cutubka 7 casharkiisa tabarruca ama waxa loo yaqaan iska wax u qabso afka carabiga tabarruc la dhahaa laakiin Soomaalida iska wax u qabso waana hadal aad u fiican yani iska wax u qabsanaysa taas way marka wax qabadka afraadan maraynay aan si dhameystirno haduu Ilaahay raa waxaan akhrinaynaa si aan u ogaano waxyaabaha hortaagan howlaha tabarrucid maxaa hortaagnaan kan sida hadda anaga haysato way maxaa hortaagan tabarrucadan oo saan u qurxan oo dadka hadday iskaashadaan wadanka hormaraayo oo ummadda liibaanayso wax ma iska saxan yahay oo mase waxba hortaagan mararka qaarkood bal aan isla fiirino howlaha tabarrucida hay-ad ay leedahay fiiriya hay-ad ay leedahay sida howlaha kaleba hay-adaa waxay rabtaa inay howlo tabarruc samayso howlo tabarruc dadka wax u qabato hadday nadaafad tahay hadday wax kale tahay hay-adaa rabto okay mararka qaarkood waxay la kulmayaan hay-adahaas raba tabarruc inay sameeyaan caqabado soo koobayo waxtarkooda yani hawshoodii baaxadii laga sugaayay iyo sidii la rabay waxyaabo soo koobay waxba sameynayaan laakiin sidii la rabay oo soo koobay aad jiro maxaa kamid ah caqabado la xiriira qofka qabanayo hawsha tabarruca laftirkiisa arki doona dhowr dhinac ay uga imaanayaan qofka qabanayo hay-adda laftirkeeda iyo bulshada qofka qabanayo hay-adan ilaa hay-adda daday u diray hawshaas qabtee leedahay qofka qabanayo hawshaas tabarruca ah mararka qaarkood dhinaciisa waxaa ka imaanaysa culays maxaa ka mid ah koow aqoon la'aan qofkan aqoon uma laha tabarruca iyo waxtarka tabarrucida ay leedahay maba fahamsanabo howlahan dhanbo yani ma fahamsana ma aha ninkii aan soo aragnay oo ahay asaa isxilqaamay ma kan maba fahamsanabo okay jahligaasaa u geynaya ودور بحوليه دولة قبضت يوحس أوليه قفك هاي شقادة تبرعدة أو كجابية هوله لوح الساري إن أو كوجتو مدة لو تلقى مدة لو قبتي قفك هوش إنه قبته مدة سالة هذا هاليري هوشان صار دمي وعج الجيدي مدة واد ديري سيد الرب ومسوق قوانين أيضا واد دبكلوي مدة لا ده هاي muddadaas ma taqaan inuu ku soo afjaraa rabaa way la dheeraatay marka tii hore maxay ahayd waxaan dhan ma fahamsanaba tabarruci maxaa la dhahaa waba la yaaban yahay waxa lacag la isku siiyo loo arki jiray saddex waqtiga howlaha tabarrucida iyo qofka shaqada qabanayo oo isdiidan ama uu wax baranayo waxa dhici karta qofkan inuu wax baranayo inuu wax kale leeyahay howlo kale inuu leeyahay marka waqtiga loo diraayo tabarruca qaban leeyahay مثلا jaamacadu dhigta ama iskool dhigta waa isdiidayaan iskoolkii laga rabaa ama jaamacadii laga rabaa intana howla looga diray saalis waafajina ayadana waa caqabad kale way marka qofka shaqada qabanayo waxaan ku soo koobnay saddexdaas oo aqoon darri oo ka haysto howlaha tabarrucida isaga oo waqtigii loogu talagalay aan ku soo dhameyn karin isaga oo waqtigiisa ciriiri oo howlo kale oo ku jira sida waxbarasho oo kale waxaa marka galeynaa hay-adda laftirkeeda oo howlaha u dirayso oo dhahaysa iska wax u qabso soo sameey hay-adda maxay sameyn kartaa hay-adda oo aan daryeelin tabarrucayaasha dadka hawsha u dirayso oy leedahay tusaale ahaan hadda magaalada waxaa ku aragtaa naago iyo niman oo jidadka xaaqayaan oo hay-adaa soo dirtay hay-ad aad soo dirtay weliba hay-ado cadaan ILO iyo International Labour Organization iyo ayaa mataqaanaa waxaas camal fan ku bixiyo okay qofkii shaqadaas adaga la gelinaa jidadkaas xaaqa oo jinni iyo jaan oo maraayo iyo muslim iyo gaalba oo maraayo baabuurta dhexdeeda xaaqayaan rafaadkaas ku jiraan hay-adii marka xogo yar aan macno lahayn siinay 30,000 150,000 waxa macno lahayn la siiyo oo $2 $3
qofkii marka danta u geynaya ilma sugaay reera sugaay muugiya shaqo uu ku qanacsan yahay sidii ninka hore oo isdiray iyo wax u dhow ma ninkan waxa waay wax fiican lama sii hayo lilaahi nimana meesha ma soo galin asiga marka waxa waay hay'adda laftirkeeda ay ku soo noqonaysaa hay'adda marka haddii ma taqaana ay wax fiican siiso waa niyad buu yeelan lahay koow hay'adda oo ka gaabisa baahinta himilooyinkeeda iyo wax qabadkeeda ujeedada ay u socoto oo laamiyaasha loo xaqay inay dadka u sheegto way inay dadka og yihiin marka ma sheegayso oo hadhow waxaa imaanayso in dadkii ra'yi kale ay keenaan warniyo saan waa laga fiican yahay saan yeela ma rabaan marka mu sheegayn ujeedooyinkooda aye hay'adda oon xadidin kaalinta tabarucida ma xadidayso howle loo diraa socda laamiga xaaqa kaalinta ma loo sheegayo qofka muddadaasaa lagu xaaqa kaasaa la yeelaa ma aha tababar la'aanta tabarucaha ka hor inta aan hawsha loo dhiibin fiiriya ninkan oo tabarucaha ah in waxaa la rabaa intaan shaqada loo dhiibin seminaar la siiyo la tawjiihiyo ma fahmino asoo og marka hawsha uu qabanayo baaxadda ay la eg tahay iyo sida qaabka ay leedahay aa la rabaa laakiin dad in la soo aruuriyo baabuurra lagu soo qaado saan yeela ma fahmayaan waxaan ujeedada aan ka leenahay waxaa waaye saas in loo sheego masalan laamiga markaa xaqeen ujeedooyinkaasaan ka leenahay see loo xaaqaa saasaa loo xaaqaa oo seminaar in la siiyo ayaa la rabaa tixgelin la'aanta dadaalka uu sameeyo tabarucaha fiiriya qofku wuxuu u baahan yahay bani aadamka dhiirigelin taxfiis wax la dhaho ama motivation in la dhiirigeliyo dhiirigelintaas waxaa ugu yar in la yidhahdo hawshiina waa fiican tahay markay hawsha soo qabtaan la shiriyo la ammaano la yidhahdo waa mahadsantihiin waddanka waa noo nuuriseen allah idin nuuriyo adinkoo kale loo baahan yahay yacni wadaninimadiina oo wahaakada qofkii marka waxaa gelayo dhiiranaan oo berri haddana shaqo kale hadday soo baxdo laakiin markii kasta yar lasii kala taga la dhaho waxaa waaye sidii la rabay ma noqonayso hawsha ururka oo laga dhigo qarsoodi hay-adaha qaarkood waxaan qarsoodi laga dhigaa qarsoodi wax weyn laga dhigaa yacni waa la qarinaa bannaanka inay taalaa la rabaa ujeedada laga leeyahay la taxo adduunka saas waay iyada oo aan lagala tashanaynin dadka kale waa bujada tashi ma jiro hadda tusaale haddaan soo qabanno dadkan laamiyada xaaqaay niman iyo naago la shiriyo intay shaqada qabanin haye saasaan rabnaa si idinla tahay waxaa dhici karto aaraa cusub inay ku soo daraan ilaa hadda naagti ciid lee xaaqaysaa ciid aan macno lahayn laamiyaasha u fiirso ciid yaroo geesaha koonaha laamigaa la xaaqa berri way soo noqonayaan ciiddi dadkii la dhibaatoonaya bis ra'yi kala imaan karo marka oo dadka ay keenan maya ma loo sheegay limaada waxaa la diidan yahay talooyinkaas cusub la diidan yahay kastaana la rabaa in xoogoo laga qaraabto marka laamiga martaan hadda naagaha xaaqayo wax weyn hadda ma sameeyo waay ciid yaroo geeska ay xaaqayaan ciiddii galabtiina waa soo noqonay haddana berri meeshaa la xaaqa sida kuwa hadda baabuurta jidadka u istaago oo meelahan bacaadka ah bacaadkii ka qaadayaan galabtiina waa kusoo celinayaan la yidhi si berri haddana waxaasoo kale ma aha howl tabaruc lama dhaho waa waxaan macno lahayn waay xanibaadda xubinnimada iyadoo aan loo ogolayn xubno cusub in ay ku soo biiraan ururka taas waxaa waaye maamulka waaye sidaasna ay ku noqdo mid ku kooban dad gaar ah bisa kusoo kooban oo barnaamijkan dan kale barnaamijka nadaafadda kasoo qabo dada dan kale dad kale ma lagu soo darayo waxaan loogu soo daraynin aaraa iyo waxaan loo baahnay inay keenayaan saas waaye marka dhinaca hay-addii laftirkeeda aa dhibaato ka imaanay qofkii waa shaqeeyo hayaa laakiin kalsooni badan oo ku shaqeeya ma hayo waxaa imaan karto dhinaca bulshada laftirkeeda waxaa ka imaan karta bulshada caqabado maxaa ka mid aqoon la'aanta ka dhex jirta xubnaha bulshada ee la xiriirta waxtarka bulshadii maba taqaanbo faa'iidada ay leedahay howlahan tabaruca iskaa wax u qabsa maba taqaanbo adduunkan waxaan isku dhaafay macallin haddaad tahay xafiis haddaad joogtid haddaa wax tahay kulli seminaaraa la siiyaa dadka seminaarka muxuu faa'iideeyaa
hawsha oo qabanayo qofka og yahay macalinka tababaran oo seminar la siiyay iyo kan la yiri fasal iska gal isku qaab ma noqonayo qof xafiis la iska fariisay qofkii soo tababar isku qaab ma noqonayo hawshan dadka u dareeshid hawl waay dadka inay og yihiin la rabaa ujeedada ay ka leedahay inay og yihiin la rabaa ayagoo murtaax ah oo qalbigooda oo laabtooda ay qabowdahay inay hawsha galaan laakiin lacagtoo yara heshay baaburka soo kora hawshan qabta islaamihii waxa waay ilmaha ka baahan waa iska galaan laakiin ma fahamsana waxa wadid aday xataa waxa dhici karta inay fikrad kale ka haystaan oo wax aqarqarinaysa marka inay banaanka taala la rabaa marka bulshada inay fahamsan tahay hawlahan maxay taraan bulshada ma qasbay maya ka dhaadhici ninka marka asoo voluntary oo laami ku xaqa oo ku qanacsan laakiin marka ka qarqarisid xogo yar siisid wuxuu isleeyahay ninkan hay barnaamijku ka wataa waxan qaar kamid ah bulshada oo u arka in hawlaha tabarucid ay yihiin waqti dhameysbo adaaba sheegayo adaaba wax weyn ku latay ani waqtiga ku dhameynay ku leeyahay waxaan beenbeenta laakiin hadda u sharaxdid inaysan beenbeen ahaan u sheegtid oo meesha dhabtaa u sheegtid waxa tahay isu sheegtid nacam waa ku yeelaan marka dad badan waxay u haystaanbo waxaan aan sheegayso dhanba waqti dhameys waa iga dhaaf ku leeyahay waxaan iga dhaaf waxa kaloo jiro arrin anaga aad noo haysato caruurta yaryarka oo lagu abaabininbo in inta ay yar yihiin qiimaha tabarucid ma lagu soo abaabininba dadkan inta yar yihiin waxa la rabaa iskuulaadka loogu sheego manhajka loogu daro sida hadda kan oo kale manhajka loogu daro waalidiinta ay ka qayb galaan seminaar loo qabto casharo la siiyo ayagoo yarba oo ku weynaadaan tabarucidda inay tahay shay muhiim ah oo ummadda ay ku horumarayso marka ma lagu abaabiyo wadamada qaarkood iyadoo aysan jirin xeerar iyo sharciyo habaynayo ilaalinta hawlaha tabarucidda hadda qofka shaqada iska galaa leeyahay laakiin bari hadii xuquuqdiisa la siin waayo intuu dacwoona waa marka hay'adaha iyo laga hadlayo tii qofka isdiraay iyo tii taas iga dhaaf tan hay'adaha ay dadka dirayaan oo ay leeyihiin hawshaas iska wax u qabto hal la qabto hadii qofkaas lagu xadgudbo oo wixiisa la siin waayo ama la aflagaadeeyo ama la dhibaateeyo xeer qabanayo ma jiro qofka saas yeelay male marka waa inay jiraan waxaas oo dhan waxayna caqabad u noqonayaan tabarucidii quruxda badneed oo hadii loo istaago wadanka oo qurux noqonayo oo dhan kasta laga dhisi lahay haday tahay dhinaca tacliinta haday tahay dhinaca bulshada haday tahay dhinaca waxaas oo dhan meeshii xoogow hakadkaas ayaa wax yareynaysaa waxtarka waa jiraan waa la iska shaqeynaa laakiin waxtar badan ma lahaanayso waxqabadka shanaad waxaan akhrinayaa inaan ogaado waxyaabaha keena guusha kelmadan guusha waxa waaye waa meesha dagaal ma jiree yani horumarka tabarucidda iska dhig saas la iska dhig tabaruca oo fiican maxaa lagu kasaa waxyaabaha qurxinayo waxaa ka mid ah tabarucaha oo ah qofka laftirkiisa oo hawsha qabanayo oo yaqaano fiiriya hawsha iyo himilada hay'adda tusaale ahaan misaal waxaan soo qabanaa madaxweynihii hore oo la dhihi jiray John Kennedy madaxweyne la dilay way laakiin aad loo yaqaano wuxuu booqanayay hay'adan NASA la dhaho oo hawada qaabilsan ku cirbixiyaanada diro way waa la yaqaan hay'adaas inuu booqdo rabo iridda markuu ka galayay waardiyihii iriddu la kulmay intaan madaxdii iyo loo tagin waardiyihii iridda joogay la kulmay markaas wuxuu yiri hey how are you I'm fine wa fiicana what are you doing maxaa sameynay madaxweynaha wuxuu wareysanaa waardiyaha maxaa qabanay oo dhahay dadkeena maxay dhihi lahayn iriddan waardiye ka ah iridda aan waardiye ka ah iridda ilaaliya waxaas aan dhihi lahayn ninka ma dhihin oo waardiye wuxuu yiri I want to send a man to the moon oo dhahay waxaan rabaa uu yiri qof ina u diro dayaxa waa markii Mareykanka uu dayaxa u socdo way ma aadin laakiin wali haddaan rabaa uu yiri I want not plural we ma I want to send a man to the moon waxaan rabaa qof ina u diro dayax madaxweynaha waa qoslay madaxdii u tagay barnaamijka sidii way waxay rabaan hay'adan waxay rabtaa inay dayax u dirto satellite ama qof waxa loo soo qaataa marka nin waardiyahaas jawaabtiisa
sida hay-adda iskugu xiran tahay hay-ad kasto laga soo bilaabo iridda ilaa madax ugu sarreeya inay isla og yihiin barnaamijka ay wadaan aal rabaa annaga ma samaynaa madaxda meelay ku shirtaa waardiyaasha iyo dadka shaqaalaha dadka oo wax nadiifinaya waxba kama ka warqabaan cid wax la socodsiisa male laakiin tan waardiyaasha iyo kulli waa loo sheegay waxaan rabnaa inaan qof u dirno alaleey marka waxaan rabaa waxaan ku keenay hay-addan qofka tabarucaha wax ma loo sheegayo qof lagu shaqaysto un haddii u badda xoogoo la siiyo waay ma aha taas waa in uu la socdaa meesha waxa ka socda imilada ay leedahay maxaa hiigsanay adaad markaa jidadka nadiifinaysa ujeedadaada maxaa waay ani ma fahamsanay ma lacagta xunoo lagu siinayo aa ka wada mase dalkaa dhisohaysa ina ii sharaxdid waay okay tabarucaha isla qofkii waay oo loo dhiibo waxaa loo dhiibaa howlo la eg awooddiisii kartidiisa aal rabaa waxyaaba ay ku guulaysanaysa tabarucaha waxaa ka mid ah ninkan tabarucaha ah waxaa loo dhiibaa howl isaga uu ka bixi karo kartidiisa ay tuka weyn looma dhiibayo 3 tabarucaha oo garanayo shaqadii loo xilsaaray waa yaqaana iyo wax qabadka laga filayo mar hore loo sheegay laakiin soo boodama waxa sameeyma mar hore loo sheegay shaqadaas qabanaysa saasay u taala hadaa kaalmo rabtid annagana weydiiso annaga gacan ku siin asigoo diyaarsan ayaa hawshii loo dhiiba tabarucaha oo yaqaano himilooyinka iyo hay'adda ay xiriirka ay la leedahay shaqaalaheeda masku fiican yihiin shaqaalaha ayadana doori ka qaadanay tabarucaha oo lagu tababaro shaqada waa kana tababar shaqada intaan la qabanaa la tababara hay-adda oo marmar qiimeyn ku samayso marmarya qiimeyn ku samayso feedback hesho shaqadii horta ma hormartay mase meesheedii joogtaa mase waa daba martay qiimeyn ku samayna evaluation waxqabadka lixaad waxa aan raadinayaa internetka mareegta la dhahaa laakiin internetka hay-adaha iyo ururada ka shaqeeyo howlaha tabarucidda ee Soomaaliya ma jiraan waay hay-adaha waa jiraan hay-adaha tabarucidda ka shaqeeyo howlahaas aan ka hadlaa qaabkay u shaqeeyaan sida u shaqeeyaan waxaasoo dhan hal iyo laba ka soo qaadana waxa tusaale koow u ah hay-adda qaabilsan nadiifinta wadooyinka iyo laamiyada si u shaqeysaa maxay waxaasoo dhan ayaa mataqaanaa inkastoo internetka aysan ku jirin waa isqiimeynaynaa marka gabagabadii aan soo gaarnay طبعا أهدافتي أن سو أرجني أي كساب سنة فكرة كساب سنة تبرعد محاول إنترنت وحكر هذه سهي أداها شقة كله وررده كشقة تبرعد وح قعان كجيسنا يا دبولي دباهية أديك لفتر كا إن قيب كقادة دواي فإدوين كتبرعد وليهن قفك إيو بالشدة وحن كفانا يا هولها بتبرعد أنيق أو كقيب مركا أديك لفتر كا كقيب جلش أديك كفر أحسن على الربا وحاسودن وحن كسبنا يا qiimaha tabarucidda kuna dhaqmaya waxa aan ugu baaqayaa dadka ka qaybgalka howlaha tabarucidda waxa aan curinayaa habab cusub oo tabarucid waa keeni kartaa dhalinyaradiin maskaxa ilaahay idin sii waxyaabo tiire ma lagu soconayo laamiga nadiifin hadii dhoo fikrada keeni kartaa oo ka fiican tan hadda socoto oo iskoaba in la siiyo oo la xaqaayo meelaha ciidda leh waa keeni kartaa marka aad uga qayb qaadan kartaa meeshaas waxaan uga baxnay akhyaaray 10kii koowaad oo ku saabsanay tabarucidda qiimihiisa iyo wixii soo dhan waa isla fahamnay waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala in sidaas mataqaana dhalinyaradiina adinka wadankan iska leh in aad ahmiyad siisaan tabarucidda wadankan wajiga ka bedeshaan qurxisaan hagaranin ayna ka sugin dawlad iyo lees xilqaamo dhalinyaradiina waa ognahay waa firfircoontihiin wax kasta waa qaban kartiin waa is abaabuli kartiin mataqaana in howlaha tabarucidda ama iska wax u qabso door weyn ka qaadataan wadooyinka waxa soo dhan habeysaan fikrad cusub keentaan xataa la kaashataan maamulada jira dawladda iyo fikrad keentaan oo sidii loo horumarin lahaa ilaa wadankan cid kale ma sugayso Mareykan ma sugayo Ciraaqna ma sugayo adoo ku sugaa haduu ilaahay hada wabillahi tawfiiq assalaamu alaykum